hay-adda NAF ayaa laga bilaaba bisha May kordhin doonta lacagaha kala duwan ee ay bixiso kadib wadaxaajood dhex mari doono hay-adaha kala duwan ee arrimahani khuseeyaan iyo dowladda dhexe ee dalka Norway. Wadahadalladan ayaa ku saabsanaan doona sidii loo kordhin lahaa qorshaha cusub ee adeegyada iyo lacagaha asaasiga u ah ee ay dadka siiso hay-adda NAF. hay-adda NAF ayaa hadda si maalinle ah dadka ugu qorshaysa oo si asaasi ah u siiso lacag gaaraysa 124 koron maalintii, waxaana caado u ahayd in sanad walba la kordhiyo lacagtaasi marka la gaaro bisha May oo lagu kordhiyo ugu yaraan 600 oo koronka Norwejiga ah. Ururka dhaqdhaqaaqa ganacsiga dalka Norway ee xorta ah ayaa sheegay in guushani ay tahay kadib markii xisbiga SV uu ku daray qodobadii lagu ansixinayay miisaaniyadda ee sanadkii tagay ee 2024, waxaana la filayaa in lacagta celcelis ahaan la kordhinayo ay noqon doonto boqolkiiba 3.49. qof kasta oo bishii Abriil helay lacag gaaraysay 20,000 oo koronka Norwejiga ah ayaa loo kordhin doonaa 698 koronka Norwejiga ah, taa oo ka dhigan in uu heli doono laga bilaabo bisha May lacag gaaraysa 20,698 koronka Norwejiga ah, waxayna lacagtan sida ay sheegtay NAF bixin doontaa laga bilaabo 20 bisha Juun ee inagu soo fool leh. halka ay wararka ugu doorkaroon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.